halkan oo ah duleedka degmada Laasgeel oo ka tirsan gobolka Murudijeex waxa ku nool qoyskan oo ka kooban 7 xubnood isla markaana 5 kamid ah haleelay xanuunka dhimirka ama sawaalida 5 xubnood ee qoyskani ka waalan ayaa waxa hore isku daldalay mid kamid ah 5taasi halka 4 soo hadhay 2 kamid ah guriga lagu hayo labada kalena la laayahay jaan iyo cirib meel ay dhigeen muddooyinkii u dambeeyay Yusuf Muuse Ismaaciil waa wiilka kaliya ee ka badqaba xanuunka dhimirka ama sawaalida ee ku habsaday 5 qof ee kale ay walaalaha yihiin Yusuf isaga ayaa soo raadiya isla markaana raadceeya labada wiil ee ay walaalaha yihiin ee la laayahay isla markaana qaba xanuunka dhimirka mar kale Yusuf wuxuu daryeelaa wiil iyo gabadh kale oo ay walaalaha yihiin oo iyagu xanuunsanaya oo uu ku xidho isla markaana ku daryeelo guriga hortiisa Yusuf inta kuma ka shaqadiisu wuxuu sidoo kale raacaa ari ay leeyihiin oo uu ka soo saaro nolol maalmeedka 4 qof ee xanuunsanaya ee uu la walaalka yahay daawadayaal si aan u helo xog intaasi ka badan waxaan wareysan doonaa Yusuf Muuse Ismaaciil oo ah wiilka kaliya ee ka caafimaadka qaba qoyskani Yusuf hadda waxaad warbixin naga siisaa xaaladda qoyskiina uu ku sugan yahay hadda maadaama aad adigu tahay qofka kaliya ka caafimaadka qaba qoyska marka laga reebo hooyada iyo da'an noqotay hadda horta muddo badan oo imaga 12 sano waxaan isnay magarasada dadkan marka aabana wuxuu dhintay wuxuu sii mootanaa 7 sano ka kale istaba cillad ku dhintay wuxuu sii mootanaa isaguna 12 sano imaga labana waa leeyahay labana waa kala qasadas marka waxa aan u baadiyo magarnas madan muslimiinta waxaan ku codsanay dir leeysa caawiyaan ma jirtaa ruux kale oo dumar oo ka caawisa walaalo in maryaha laga bedelo kale hay anba u meedo ka bedelo magarnas si kasta anba u shaqay sidoo kale waxa tahay xoog u soo adeega xaafadan ee nolol maalmeedkooda u soo saara halkeen nolol maalmeedkooda uga soo saartaan ariga yar ba joogo magarnas iska nolol lahayd daciif ma labada walaalaha ee hadda maqanay xanuunsanaya halkee kugu wardambeysay ku maqashay inay joogeen markii kugu dambeysay muddo imka waxay ka maqnaa qaasay dhowr shay la xisho meelaha qaas midna dawa kan soo ku 12 sano sii mootanaa si lagu way waxa qaastay dawladda hoose maxameedkiisa ma arag nolosha aad ku jirtaan eed walaaliyo ku hayso waxa uu hooya gurigan gurigan buu hooyay maalintii waxa lagu geedka waxaan marna maalintii arigan raaca magarnasta iyo la jooga habeenkiina maalintii biya macal la cunna kriska waxaan kariyaa habeenkii aan ka shaqeeyaa hooyana cusbitaal ku xanuunsan mid sidoo kale waxaanu iyadana halkaasi kula kulanay Khadra Jaamac oo iyaduna xog ogaal dhow u ah nolosha qoyskani danyarta ee uu badidoodba haleelay xanuunka dhimirka ama sawaalida u nimid tabarucaad iyo dad jilicsan oo dhibaataysan oo aan dhawaaqna soo gaari kareynin aragna soo gaari kareynin aynu ugu nimaadna halkan si aynu xog dhaba uga helno xogta dhabanka haya qoyska halkan yaala ee meesha baadiyaha yaala waxay haayeen ka koobnaayeen qoyskaasi 7 qof 7 qof 5 kamid ah ayaa xanuunsanaya marka laga reebo qof qoyska wiil kamid ah oo ah wiilkan iyo maamadii dhashay oo iyaduna hadda xanuunsanaysa oo iyadoo aan dhimirka u xanuunsanaynin laakiin xaalad kale oo caafimaad darro oo nafaqo darro iyo dawaaye iyo xanuun daraadeed looga dhax qaaday dadka caynka u dhibaataysan waxaan xog dhaba ku haynaa inuu mid istabay labana hadda ay maqan yihiin geeri iyo nolol meel lagu tilmaamo midnaba aanay jirin cid kale oo Allah hayno ka gacan sareysaana aanay jirin hoygooda waad arkaysaan inantaasi waxay xidhan tahay iminka muddo dhowr iyo 10 sano bay noqonaysaa inta iyadu xidhan tahay silsilada ay ku xidhan tahay hoygeedu waa halka aad arkaysaan hadii roob da'ayo hadii ay dabayl dhacayso hadii uu bacad dhacayo dusheedana waad arkaysaan kalarkeeda iyo muuqaal ahaan sida isu bedeshay marka waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta meel kasta daawadayaal sida idin muuqato qoyskan ka koobnaa 7 xubnood ee 5 kamidii ay maskixiyan u xanuunsanayeen hadda waxa idin muuqda mid kamid ah aqal Soomaali kooban bacayar yar oo celinahay roobka iyo sidoo kale bacadka wuxuu hooy u yahay oo bahalada iyo waraabayaasha lagaga ilaaliya isla markaana lagu xareeyaa saado oo ah qof miirka ka xanuunsanaysa isla markaana muddo ka badan 10 sano ku xidhnayd halkan oo ay ku silsiladeysan tahay Maxamed Deeq Ismaaciil Xaashi telefishinka bulsho duleedka degmada Laasgeel